bitcoin ugu dambaystii waxa ay soo taabatay 106,000 ayay soo taabatay. Haddaba maxay tahay muhiimadda ay leedahay in ay halkaa gaadho? Maxaana inaga inoogu jira faa'iido oon u baahanay inaynu ogaano? Bitcoin waqtigii ugu dambeysay waxa ay ku meereysanaysay meeshan oy sarena aadi weyday hoosna aadi weyday, taasoo haddii lacala ay hoos soo dhici lahayd go'aaminaysa suuqa inuu soo daato, haddii uu sare sii sacana sii go'aamin karaysa. Waa bitcoin ama cryptocurrency layskuma hadlayn karaya in mataqaana ay sare usii aado, balse ugu dambaysi waxay jibisay meel aad u muhiima ama mataqaana qaab dhismeed kaasoo mataqaana ka caawin karay suuqa inuu sare sii aado. Waxaanu eegi doonaa suuqu halkeebu gaari doonaa iyo bitcoin saamaynta ay ku yeelan doonto coinanka kale ee ka dhisan suuqa cryptocurrency. kusoo dhawaada videogan maanta. Fadlan waxyaalaan kugula wadaagi doona ha u malaynin in aan kuleeyahay ku maalgasho fikradeyda. Fadlan xog kuugu filan raadi kuna maalgasho fikradaada. Phantom ugu dambaystii waxay samaynaysaa iyaduna dhaqaaq aad u fiican. Maanta waxaan rabaa sidoo kale inaynu isla eegno oo aan idinkana fikraddiina badan aan eego. Yaad u malaynaysaan 2024 yuu yahay coinka aad cimaamada saari lahaydeen? Yuu yahay coinka aad isleedihiin waa coinka dab yar aan shidayn 2024? dhaqaaq fiicanna sabi, bal commentiga nagula wadaag. shaxda kala horeynta suuqa cryptocurrency waxaanu arkaynaa ethereum in weli ka hadda ay ku jirto kaalinta labaad, balse waxaa jira smart contracts kale ama coinan kale oo mataqaana smart contracts sidoo kale u shaqeeya, kuwaasoo mataqaana sida ethereum u shaqeeya kana caawinaya shirkadaha iyo mataqaana cid walba u baahan mataqaana in loo sameeyo smart contract, kuwaasoo u qabanaya shaqada ay qabanayso ethereum balse ka jaban. laakiin iyada laftarkooda ay halis leedahay iyayihiin talow oo bedeli karaya kaalinta labaad. waxaan isleeyahay bilooyinkii soo socda ethereum booska waa lagala bixi doonaa, sidaynu arkanaba in XRP ay mararka qaar xataa kala dhex baxdo, USDT ay kaalinta kala baxdo. waxaan arki doonaa Ethereumna in lagala bixi doono booska kaalinta labaad. coinka immutable gaming sectorka waxaan rabaa mataqaana inaynu isla eegno immutable waqti xaadirkan waxa ay samaynaysaa korriin aad u fiican, gaar ahaan gaming sectorka. waxaynu sidoo kale aan idin tusi doonaa transactionka NFT-ga, coinanka ugu badan ama chainanka la isticmaalo marka la rabo in NFT la iibsado ama layska iibiyo, meelaha u badan ama chainka loo isticmaalo si mataqaana loo iibsado NFT ama laysaga iibiyo, iyo sidoo kale transactionka sida u kala duwan yihiin mataqaana iyo kaalmaha ay ku kala jiraan sidoo kale. haddaba immutable waqti xaadirkan korriin aad u fiican ay samaynaysaa, marmar ka samaysa bartinaro cusub ay samaysanaysaa, kuwaasoo mataqaana iyaguna NFT-ga ama gaming sectorka kusoo biiraya. haddaba haddaynu fiirino lacagaha ku qulqulaya mataqaana NFT-ga meelaha ay kala maraan, badanaa waxaa kaalinta koowaad ku jira marar far badan aynu aragnay inay ku jiraan Ethereum, balse sidoo kale kaalmuhu sidoo kale horeeyana sidoo kale waynu arkanaa. waxaa ugu horreeya Ethereum, Bitcoin, Solana, immutable ayaa ku xiga. sidaynu arkano immutable waxaa ku jirtaa kaalinta afraad. haddaba aynu fiirino midkeeba transactionka u badan lagu dhex qulqulinaya ama transactionka u badan halkeebuu maraya. waxaynu ka saari doonaa Ethereum, baynu ka saari doonaa Ethereum. marka aynu ka saarno waxaynu arkanaa Ethereum in mataqaana ay korriin samaynayso mataqaana ayaamihii u dambeeyey sidaynu arkano. haddaba bal aynu bitcoinna fiirino. bitcoin haddaynu fiirino in ethereumka ka saarno waxaynu arkanaa inaysan korriin samaynin. bal aynu ka saarno bitcoin kabacdina waxaynu eegi doonaa Solana. haddaynu fiirino Solana waxaynu arkanaa in ay Solana waqtigii hore kaga fiicneed waqti xaadirkan mataqaana oo transactionka u badan uusan iyada ku qulqulayn ama aysan ahayn midda la isticmaalayo. haddaba waxaynu eegi doonaa iminkana immutable ayaynu eegi doonaa NFT-ga, bal meesha u badan lacagta u badan ay ku dhex qulqulayso. waxaynu arkanaa midda u badan ee korriinka samaynaysa immutable. marka NFT-ga lacagaha u badan waqti xaadirka meesha ku qulqulayso waa immutable. korriinka hadday tahay NFT-ga iyo gaming sectorka sidoo kale korriin aad u fiican ay samaynaysaa. haddaba aynu kusoo noqono aabaha suuqa cryptocurrency, kaasna waa bitcoin. bitcoin ugu dambaysi waxay kusoo laabatay market capkeedu 2 trillion, taasoo mataqaana ay soo taabatay mar hore, laakiin haddeerna waxay kusoo laabatay in mataqaana 2 trillion in ay gaadho. bitcoin waqti xaadirkan waxay kusoo laabatay awoodeedii. bal aynu fiirino altcoinska maxaa ku dhacay talo. waxay leedahay altcoinska, waxay leedahay bitcoin weli ka hadda waan soo laabtay mar kalena mataqaana dhaqaaq fiican ayaan samayn doonaa. altcoinska waxay leeyihin adeer waraalaw laguma haysan karayo, cimaamada lama haysan karayo. haddaba waxaa muhiim inaynu ogaano bitcoin maadaama ay mataqaana jebisay meeshan ay ku rafaadisay, maxaynu filan karanaa. sidoo kale waxaan tusi doonaa maxaan idhahdaa meel ay mataqaana sidan oo kale ay samaysay aan filan karana in mataqaana dhaqaaq noocana ay samayso 2025. sidoo kale Donald Trump markuu 2025 January mataqaana madaxtooyada uu soo fadhiisto mataqaana soo caaga dhigo, maxaa ka dhici kara suuqa cryptocurrency. haddaba bal waxaanu qiimeyn doonaa cryptocurrency gaar ahaan bitcoin maadaama halkan jebisay. waxaynu rabnaa inaynu ogaano maxaa dhici karaya. haddaba waxaan rabaa inaad sawirataan oo aan dib u eegno halkan dhaqaaqan mataqaana isku daba meereysiga halkay kale ku samaysay. waxaa ku samaysay halkan markay halkan jebisay
dhaqaaq nuuceebeedu ay samaysay baan rabaa mataqaanaa in aan idin tuso kabacdina aynu sawiran karayno oynu odhan karno mustaqbalkana talow ma samayn karaysaa dhaqaaqa noocaas oo kale ah. Haddaba waxaan rabaa ranjigan ama mataqaanaa dhaqaaqa noocana in aynu sawirano dhaqaaqa noocana in aynu sawirnaan rabaa waa imisa 48% ay sare u dhaqaaqday macnaha markay isdaba gasho kabacdina 47% ay sare u dhaqaaqday. haddana waxay ku celisay mar kale isdaba maxaynu filan karanaa waxaynu samayn doonaa 47% ay sare u dhaqaaqday baynu sawiran doonaa kabacdina waxay odhan doonaa 47% halkay ku beegan tahay talo 47% halkay ku beegan tahay talo waxay ku beegan tahay 150 adu 150 aynu laano 150 bitcoin talo ma gaari doontaa ama dhaqaaqa noocaas ma samayn doontaa haddii lacala ay samayso altcoinsku badanaa iyaguna dhaqaaq fiican way samayn doonaan laakiin sidii la rabay samayn maayaan waayo lacagta badan waxay ku qulqul doontaa bitcoin balse large capska ama coinka ku dhisan mataqaana oo leh large market cap iyagu dhaqaaqa fiican ay la samayn doonaan mar walba bitcoin ay sare usii aado ama ay sare usii dhaqaaqo marka bitcoin waxa suurtagala mataqaana inay samayso raaliga noocaas oo kale ama dhaqaaqa noocaas oo kale sidoo kale waxa suurtagala mataqaana in ay sare u dhaqaaqdo balse waxa aad u muhiima haddii lacala ay taa samayso ama dhaqaaqa samayso in mataqaana aynu ku darsan xisaabta oynu eegno oynu samayno mataqaana risk management fiican lacala haddii ay mataqaana halkan soo jebiso sagaashanka waxaynu filan karnaa suuqu in mataqaana uu hoos soo dhaco taasna waxay samaynaysaa mataqaana inuu suuqu mataqaana istejiyo oo mataqaana slow down crash uu sameeyo sida inaga noo fiican wax weyn isaan videoga hore sheegay in mataqaana aynu structure aynu aragno taasoo inaga caawin karta suuqa waqtigan ka baxano iyo waqtigan kusii jirno suuqa balse waxa muhiima inaynu halkan aynu si fiican uga digtoonaano si fiican noo eegno may jebisay masare ay uga sii socotaa waayo waxa weyn imika waxay samaysay structure cusub ay samaysay ama dhaqaaq cusub ay samaysay lugu cusub ay samaysatay marka lacala haddii halkan jebso waxaan sawiran karnaa mataqaana inay samayso slow down crash ama inay hoos soo dhacdo weliba si tartiib tartiiba balse mar walba aynu filanno dhanka wanaagsan inagana faa'iiday noogu jirto in mataqaana dhaqaaqa kale ay samayso ama rally kale ay samayso taasoo ay gaari doonto 150 haddaba waxaan rabaa sidoo kale inaad commentiga nagula wadaagtaan yaad isleedihiin cimaamadiisa ma haysan karsan coinkey ayaad isleedihiin 2024 wuxuu sameeyey dhaqaaq aad u daran taasoo adigana portfoliohaaga lacag fiican ku samaysay ama haddii xataa aysan ku samayn yaad isleedihiin coinka waxa weeyaan mid aan la haysan karin cimaamadiisa commentiga nagula wadaag asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu